maanta waxaa soo dhamaaday kulankii u dhexeeyay Daryeel iyo weliba kooxda kubadda cagta Qaasim Balaad. Balaadini kusoo dhawow horaan waxaan ku weydiinayaa kulanka galabta bal adiga ahaan maxay ku baxay? waa dhawahay horta maanta ciyaar fiican la soo bandhigay labada koox intii kaampi la gaarin labada koox waa fiicnaayeen Daryeel gool dhalisay ka bacdi Sheikh Hassan Al-Barawi waxay keentay bareejo oo regoor ugu keentay laakiin second half markii kaampi ay naqatay wax yar Balooniga waa isbedelay ilmihii oo Saqaawdiin mise wax yar waa macnaha Balooni ma ciyaarin kubad ma ciyaarin waxa ciyaartay Daryeel Balooni fiican ciyaartay soo bandhigtay xoog khibrad leh duqan laacibka Xasan Barey la dhaho center campista oo ahay uu qabtay Baloonigaas Balooni goolayaasha badan ba asaa ka imaaday ka bacdi gool labaad dhaliyeen ka bacdi gool saddexaad dhaliyeen hadana waa dadaaleen gool afraad iyo shanaad way keeneen ilaa oo ilmaha kale waa qalbi jabeen oo maleena almint la'aan ma jirto ma ogi laakiin waxaan arkay aan Daryeel inay oo maanta almintadeeda iyo information kooda oo fiicnay Balaadini maxaa loo sababeyn karaa maadaama qaybtii hore ciyaarta ay si wacan u ciyaareen kooxda Qaasim Balaad balse qaybta dambe maxaa ku dhacay ma bedelka ayaa wax keenay la oran karaa waxaa laga yaabaa in almint la'aan inay jirto mise ilmahan waxa waay hadii hal gool laga dhalay markino waani jawaan ma dhahayaan aan keeno gool labaad aan bareejeno ma dhahayaan bas waa Balooni iska fiirsanayaan waa iska istaagan yihiin ma ogi maxaa damacooda aniga laakiin waa arkay waxaa loo baahan yahay coachkooda inuu hadlo oo dhiirigeliyo oo dhaho Balooniga raaca hal waay waa keeni kartiin hadda labadan bere waxaa la ciyaarayaa 40 daqiiqo ilaa insha Allah 45 laga dhigi doonaa mar dhow Balooniga Baraaw waxaan rabnaa inaan meel oo fiican aan ka gaarsiino laakiin ilmaha waan noogeen ilmaha kale Banaadir wax yar almint la'aan laba qofood saddex qofood kabtankooda u dhaqaaqay fiicnaaya laakiin ku kale wax yar Balooni maanta oo kale uma soo jeedin laakiin Daryeel Balooni fiican ay ciyaareen